Waxaa jiri jiray wiil iyo gabar walaalo ah. Maalin bay booqasho ugu tageen ayeeyadood oo baadiyaha meel beer dhexdeeda ah guri ka deganayd. Wiilkii inta uu dibadda u baxay buu alwaax iyo qoryo ku shiish baranayay. Hase yeeshee, wax kasta oo uu shiisho waa uu la gafayay. Arrintaas aad buu uga murugooday. Kadib xilligii cashada ayuu guriga soo aaday. Intii uu soo socday, wuxuu arkay boolabooladii ayeeyadiis oo meel socota. Waxa ku soo dhacday inuu iyada shiishka ku tijaabiyo, mise madaxa ayuu jabiyay, waana ay dhimatay. Aad buu uga murugooday in boolabooladii ayeeyadiis uu dilay. Isaga oo argagaxsan buu meydkeedii kaynta ku dhex qariyay. Balse waxaa kadis ku noqotay inay walaashiis Xabiibo wixii dhacayay oo dhan arkaysay, mase aanay hadlin. Maalintii xigtay, wakhtigii qadada ayeeyo waxay tiri, Xabiiba ina keen, aan alaabada dhaqna. Xabiibo waxay tiri, ayeeya Ibraahim wuxuu ii sheegay inuu doonayo inuu jikada kaa caawiyo. Kadibna waxay wiilkii dhegta ugu sheegtay, ma xasuusataa boolabooladii? Sidaas ayuuna Ibraahim ayeeye uga caawiyay alaabtii dhaqitaankeeda. Isla maalintaas awoowe ayaa weydiiyey inay carruurtu jecel yihiin inay ugaarsi u raacaan. Ayeeyadii waxay tiri, iga raali noqo, laakiin waxaan doonayaa inay Xabiibo diyaarinta cashada gacan iga siiso. Xabiibo intay dhoola caddayso waxay tiri, taasi dhib ma lahan, oo Ibraahim baa ii sheegay inuu isaga doonayo inuu ayeeye ka caawiyo diyaarinta cashada. Dhegta ayay mar kale ugu sheegtay, ma xasuusataa boolabooladii? Xabiibo ugaarsi ayay aaday, Ibraahimna ayeeye gacansiinteeda ayuu u haray. Dhowr beri kadib, Ibraahim wuxuu ka shaqaynayay shaqadiisii guri ee iskuulka iyo tii walaashiis. Sidaas bay hayin ay ku guurto uga dhigatay boolabooladii uu dilay darteed. Wiilkii duruuftaas wuu xamili waayey. Kadibna inta uu ayeeyadii u tegay buu u qirtay inuu isagu boolabooladeedii dilay. Ayeeyadii inta ay jilbaha ku fadhiisatay oo hab siisay bay tiri, Xabiibi waan ogaa wixii dhacaya oo dhan oo daaqadan kaa arkayay adiga oo sidaas sameeyey. Haddana waan ku jeclahay maxaa yeelay gefkaagii ayaad qiratay. Aniguna waan ku cafiyey. Keliya waxaan rabay inaan ogaado ilaa goormee ayaad u adkaysan kartaa inaad Xabiibo addoon u sii ahaatid. Haddaba cibrada sheekada ku jirtaa waxa waaye, dembi kasta oo aad geshid, shaydaan ha ka ogolaan inuu kugu gumaysto oo addoon ugu noqotid. Waa inaad og tahay in Eebbe ku arkayo, falkaagana la socdo, uuna kaa sugayo inaad u toobad keentid si uu kuu cafiyo. Shaydaan wuxuu ku dhaartay inuu dadka lumin doono inta ay nool yihiin. Allana wuxuu ku dhaartay inuu addoommadiisa u dembi dhaafi doono inta ay toobad keenayaan. La wadaag sheekadan walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan uguna cibro qaataan.